liidarka ama hoggaanka beentu waa ka xaaraan. Farmaajo waa madaxweynihii ugu beenta badnaa ee abid Soomaaliya soo mara. haddii aad isleedahay isagaan been ka sheegayna 10 ka mid ah beenaha aan xad ka lahayn ee uu sheegay daawo. waxaan idin sheegaynaa Soomaaliya muddo 4 sano ah inay ka hormarayso dowladda Afrika. waxaan xaqiijinaynaa muddo 2 sano ah shabaab inaan dalka ka ciribtirno. waxaana saaran oo tahay magaaladan aragtaan oo burbursan 4 sano gudaheeda inaan ka soo saarno magaalada ugu nadiifsan magaalada ugu qurxoon inaan ka soo saarno. 4 sano joogayaa mana soo sharaxayo nomination daba qaadan maayo jid la xiraayo ma jiraayo oo la yiraahdo khilaafaad madaxweyne iyo prime minister ah dowladdan waxay ballan qaaday khilaafaad inuusan jirin in aqalka sare ay caasimadda Muqdisho ay ku yeelato matalaada ay mudan tahay. World Bankiga bankiga adduunka uu nasiiyay dhaqaale deentii ugu horeysay oo Soomaaliya la siiyo burburka ka bacdi lacagtani deyn ma aha waa deeq weyn. Read my lips. aniga ciidanka hadda isku haleen waay Soomaaliyeed oo aan tababaran waay 4 sano waa inta ugu sahlan ogow maxaa adiga nabadgelyo guud iyo shacab guud nabadgelyadiisa xagee ka keenaysaa adigii baaba isku haleen waay ciidankii Soomaaliyeed waxyaabaha ay qarxiyeen haday yihiin hoteelo haday yihiin guryo inaan dhisno annaga maxay annaga ka masuula annaga ilaalin weyn nabadgelyadii dadka ku dhinta inaan magdhow siino. Farmaajo ka hor intuusan madaxweyne noqon ma jirin siyaasi ka jeclaa in wax laga weydiiyo xaaladda dalka. sababta hadda madaxweyne Farmaajo uusan u hor imaan warbaahinta iyo fagaarayaasha su'aalaha lagu weydiiyo madaxda ayaa ah in wax kasta uu sheegay iyo ballan kasta uu qaaday ay been noqdeen. waxa uu ku hadlana uusan aqoon. haddii ay jiraan beena ka weyn 10 kan fadlan nala wadaag.